ومسوق معصق هذا يقف يسكت ضيق إنه حوالها دولة ده على تعوين دولة ده حكوا الوجود ده وحلا رنا يمس ينكر كده أفرت الجردينني هو أنت قال كيجا والو كلا تجي كي قاتو بعدنا كوي إيمان لي مركل كهرباء إلى سيسي شو مركل محان ولا كذا عندنا لليه ما واعي أنتوا هو نوع أخرية هو نوع حماس وضع هو نوع أخرية هي مركل لوجو عليه أنتوا أشياء اللي يبلغ يعني waxaa imaan doonta in dib loo soo celiyo ayna noqoto maalinta cadaaladda in lagu fuliyo ciddii waxaa samaysay dunidu waxay dagaal kula jirtaa ciribtirka musuqmaasuqa oo la isla wada yaqiinsan yahay inuu yahay faqriga waalidkii haddii wadamada dunida ee shiinuhu ka mid yahay aad aragtay maayer ku xigeen loo daldalayo musuqmaasuqu ku kacay oo aad maqasheen Malaysia ra'iisul wasaarihii hore xaaskiisa iyo qaar ka mid ah golihii xukuumaddiisa oo xabsiga loogu taxaabay falal musuqmaasuq iyo hanti dib looga soo celiyay Ethiopia saraakiil sarsare oo iyana fakad xadka Suudaan looga soo qabtay kiisas musuqmaasuq awgii halkani waa xamare maxaa ka dhacay shacabku se maxay kala socdaan ama ku og yihiin waxaa noo muuqatay kala duwanaanshaha qaababka musuqa iyo boobka hantida ummadeed ee siyaasiyiinta Soomaaliya ay ku kaceen waxay ka fursan weyday baaxadda ay leeyihiin boobka iyo dhaca halkan ka dhacay waa Muqdisho inaan 2 iyo 3 barnaamijba ku soo qaadano qalinka ummadda iyo ka baayac mushtaraynta siyaasadda haddii aynu barnaamijkeennii hore ku soo qaadanay markana bal hantidii ma guurtada ahayd ee dawladda dhulkii danta guud iyo goobihii ka caaganaa u adeegsiga waxaan dad shacab ahayn sidee laga yeelay jardiinooyinkii iyo boostejooyinkii caasimaddu halkay ka bixeen kaalmihii shidaalka ee dawladdu lahayd halkay ku dambeeyeen dhulkii xeebtii hore loogu yiqiin dimaaya mirinta waaliid ee meedayana dawladda maxay ugu jilaneed maanta se maxay tahay yaa mulkiilayaalka liisaska magacyada qof iyo qoysasba baadi goob idinku daawan doontaa dhulkii baaxadda lahaa ee egas kantarool balcad isna halkaad ku oogay dhulkii xayndaabka madaarka Muqdisho wadadii jayga ee danyartii deganeed looga raray ammaanka madaarka dartiis maanta muxuu yahay yaa qaatay qaybsaday oo iska leh waa tan ee dugsigii farsamada ee loo yiqiinay Boolaniiko yaa sahayday baadi goob wuxuu idin hayaa cadayma mugle iyo maragyadoodii Muqdisho waxay lahayd goobo nasasho caasimadu waxay lahayd shaaracyo leh goobo basaska laga raaco waxay lahayd jardiinooyin lagu nasto waxay lahayd xeebo qurxoon oo deganaanta ka caagan oo waxay lahayd kaalmo shidaal oo dawladdu leedahay waxay lahayd goobo ka caagan degaameyn iyo dhul ummadda loogu adeego oo cid gaar ah lahayn yeelana karin burburkii dhacay intaasoo hanti ma guurtaa oo ummaddu wada lahay waxay ka nabad galeen jabhadihii dalka soo maray hogaamiye kooxeedyadii qabqablayaasha xilligoodii xukuumaddii carta lagu soo yabyabay maxaakiimtii iyo wakhtigoodii iyo weliba xukuumadihii ku meel gaarka hase yeeshee waxay gacanta ka baxeen waqtigii laga baxay ku meel gaarka dhacdooyinka barnaamijka aad ku daawan doontaan ayaa qaarkood yihiin kuwa naadir ku ah bulshada
aan ku horeeyay muqdisho taariikhdu golkii ay ahayd 29 bishii 9aad 2013 waxa soo baxay xeer madaxweyne xeer number 117 kaasoo ujeedkiisu yahay dib ula wareegid dhul danguuda xeerkaasi oo uu soo saaray madaxweynihii hore dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u dhignaa sidan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 87 xarfihiisa ba iyo farqada labaad ee dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 79 farqadiisa koowaad iyo qodobka 100 ee xarfaha a iyo d ee dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya markuu arkay warqadda sumadeedu tahay tan halkan kaaga muuqata ee ku taariikhaysan isla 29 bishii 9aad 2013 kuna saabsan soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee waqtigaas markuu arkay tixgeliyay in loo baahan yahay in la sugo nabadgelyada garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde markuu tixgeliyay in loo qabo baahi aad u weyn in la sugo nabadgelyada dalka guud ahaan gaar ahaan gobolka Banaadir wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo saaray xeerkan qodobka koowaad laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 29 bisha 9aad 2013 wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeer dib loogula wareegayo dhulalka ku yaala wadada Jayga iyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kuwaasoo ay hore u lahayd dawladdii Soomaaliyeed waxay dawladda federaalka Soomaaliya si qasab ah dib ugula wareegaysaa si danguud dib loogu celiyo sida uu qabo qodobka 26aad farqadiisa labaad ee dastuurka qodobka labaad wuxuu xeerkani farayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka bacdama uu xil weyn ka saaran yahay nabadgelyada iyo xasiloonida gudaha dalka inay 10 casho gudahood kaga saarto dadka degan dhulkaasi si loo sugo ammaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde iyo guud ahaan gobolka Banaadir qodobka saddexaad wuxuu xeerkani dhaqan galayaa isla marka uu saxeexo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana lagu soo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa saxeexay xeerkiina waa la faafiyay dhulkiina wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka oo xilligaasi uu wasiirka ahaa Cabdikariin Xuseen Guule iyadoo adeegsanaysa awoodda ciidamada ammaanka cagafyada iyo qalabka dawladda hoose waxay guda gashay burburintii dhismayaashii ka dhisnaa xayndaabkii garoonka ee dhulkii wadada Jayga kicinta iyo ka saaridii dadyowgii deganaa oo la dejiyay sanadkii 2004 xilligaasi oo ahayd waqtigii marxuun madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf Axmed dhulku waa kan hal dariiq oo jay ah ayaa u dhaxeeya madaarka caalamiga ee aadan cadde dariiqaasi oo loo yaqaano Jayga waa xayndaabkii madaarka suurtagal sinaba uma aha deegaameyn iyo daara laga dultaago waqtigaasi dadweynihii laga raray halkaas laga dumiyay dhismayaashoodii waxay u hoggaansameen awaamiirtii madaxweynaha waxa ay aqbaleen xeerkii madaxweynuhu soo saaray oo la meel mariyay sidaasina waxay uga wada guureen dhulkii madaxweynaha iyo wasiirkiisii daaqiligu ay ugu arriminayeen liajli ammaanka madaarka dartii hayeeshee xeerkii madaxweynuhu soo saaray soo jeedintii ka timi wasiirkiisii ahayd in dadkaasi rayidka dhulka laga kiciyo ka arrimintii ammaanka madaarka ka talintii aayaha qaranka iyo iridaha laga soo galo si loo sugo ammaankooda dabadeed maxaa dhacay kadib markii iskaashigaasi madaxweyne ilaa heer wasiir gaadhay ku dhowaad 100 qoys buulalkoodii iyo dargadahoodii uga dhisnaa cagafyo laga geliyay ana adeegsaday xeerkii madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo amnigu ee loo cuskaday aayaha ammaanka iyo mustaqbalka madaarka madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud qoyskiisii eheladiisii qaar ka mid ah xubno ka tirsanaa xukuumaddiisii iyo mas'uuliyiin ka mid ahaa baarlamankii waqtigaasi waxaa la qaybsaday dhulkii heerka madaxweynihii dadkii deganaa lagaga kiciyay waxa iyana dhacday oo cadaymaha ka mid ah uu baadigoobidiin hay kooxo ganacsataa oo iyagana dhulkaasi qaybo iska dhan laga iibiyay intaanan cadaymaha u gudbin halkani waa dhulka aynu ka hadlayno waa wadadii Jayga waa dhulkii madaarka gegida diyaaradaha ee aadan cadde madaarka iyo dhulkan aad arkayso waxa ku kala gudban siliga madaarka oo kaliya waa aan dhex tagnay dhan kastaba waan u qaadnay booqanay dhismayaasha kala duwan ee ka socda
muruq maalka dhismayaashaasi saraha halkaasi dhismahoodu qaarna dhammaaday kuwa kalena uu ka socdo weli waxay mid farta kuugu fiiqayaan guri iyo daar kasta iyo cidda loo dhisay ama dhismo uu socdo waa tani haddaba sidee loo kala leeyahay dhulkan aad arkayso caddaymaha aan ku horeeyee kani waa liiska mulkiilayaasha saddexda qof ee liiska u sarreeya waa isku hal qof oo lagu magacaabo cabdiraxmaan axmed cali waxaana la siiyey 30 boos oo booskiiba cabirkiisa dhuleed uu dhan yahay 40 lagu dhiftay 100 liiska kaalinta afraad waxaa kaga jira madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud calasow walaalkiis cali maxamuud calasow waxaana la siiyey 10 boos oo dhulkaasi ka mid ah halkii boosna sida kuugu muuqata halkan cabirkiisu waxa uu dhan yahay 40 lagu dhiftay 75 kaalinta shanaad ee mulkiilayaasha dhulkan la hantiyey waxaa iyana ku jirta marwadii madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud marwe sahre cumar xasan oo hantiilo ka ah 6 boos oo ka mid ah dhulkaas cabirkooduna booskiiba uu dhan yahay 40 lagu dhiftay 45 waxaa isna ka mid ah dadka dhulkaasi hantiyey cabdilaahi goodax barre oo la siiyey 2 boos oo midkiiba cabirkiisu dhan yahay 20 lagu dhiftay 30 waxaa kaloo isna liiska ka mid ah ganacsade lagu magacaabo cabdirasaaq ciise abtidoon oo isna hantiyey 8 boos iyo nus sida idinka muuqata cabiradooduna ay kala duwan yihiin eegas wasiiru dawle cabdilaahi maxamed nuur haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna ka mid ah dadka dhulkan hantiyey maadaama xildhibaan cabdilaahi maxamed nuur isagu uu dhulal kale oo fara badan mulkiile ka yahay maanta waxa uu dhulkan ku leeyahay ama laga siiyey sida liiska kaaga muuqata 1 boos oo kaliya xirsi aadan rooble cabdiqaadir cali nuur ayaa iyaguna min 1 boos la mulki siiyey khaliif axmed ereg isna 1 boos ayuu ku leeyahay halka xuseen cabdi xalane mahad maxamed salaad yuusuf geelle ugaas iyo maxamed xasan nuur iyaguna ay min 1 boos ku leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud walaalkiis kale oo lagu magacaabo xuseen sheekh maxamuud calasow isna waxa la siiyey 1 boos sida halka kaaga muuqato waxaa liiska ka mid ah oorida iyo qaar ka mid ah ehelada jawaari waxaa liiska ka muuqda wasiir goodax barre oo dhowaan iyo haatanba guddoomiye u ah kuwa loo igmaday soo celinta hantida ummade xeer ilaaliyaha guud ee qaranka haata xilkaasi haya magacyada kale ee halkan idinka muuqda ayaa isugu jira xaasaska shakhsiyaad madaxahi qabaan oo ay ku qorteen boosaskooda iyo ganacsatooyana laga iibiyey sida aad ku arkaysid cabirka boosaska uu leeyahay cali sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii hore walaalkii tanina waa mid ka mid ah mulkiyadaha rasmiga ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud walaalkii cali tan kale aad arkaysaa iyana waa mid ka mid ah mulkiyadaha dadkii hore ee dhulkaasi laga kiciyey إن لبي تونكي صبحنا إيه صبح ciidamo aad u fara badan ay hayna lagu soo daashay meeshaasna waxaa deganaa dadka ay u yaqaaneen birmageedada kumaan kun qaxooti oo cooshada u dhiseen ayaa deganaa waxay ahayn dadka u jilicsan oo birmageedada la yiraahdo oo ay tahay in iyaga loo gargaaro diinta muslimkana ay tiri fuqarada waxa la siiyo in adduunkana uu maxay ahayd birmageedada u bixiyay waxay ahayd dad aan haboonayn in lagu xadgudbo laakiin waxa loola dhaqmay si aan taariikhdu iloobayn oo cadawtinimo aad u duxa dheer oo islaamnimadu aanayba meel ka soo gelin bay ahayd arrin muruga badan bay ahayd ciidamo fara badan oo Soomaaliya isugu daran bay ahaayeen waxay wateen hubka ay noocay wateen ma sheegi karo wallahi ani 77 miya loo socdaan bay siri oo macnaa ma maxaaradii inta ula dagaalami doonaa dad birmageeda ama masaakiin ah arrin oo maxay ahayd ku haboormeen ahayn waxa dhacday in cagtana la mariyay maxay ahayd nuska saacaynteena gaarin cagtana la mariyay inaan ciyaalkii la cararnay in maxay ahayd la dhaawacmay waxa ugu daraa dadkii jiingada u dhisnaayeen lagu dumiyay oo musbaarada ay dhakada ka wada mudeen dadkii cooshada u dhisnaayeenna ay inay dabba uu ka kaco ay ku sigteen adiga qof weel qaaday iyo qof ka qaaday meena jirin qof walba meesha ay cirsan ka dhay ay ciyaalkii ula carartay arrinkaas asaga markuu nagu dhacay hay'ada gargaar baa lagu noolaa macaawinan meesha ku cuni jirnay hay'adihii deegooraan dib u helna amaan isu doonanaaba waxay noqotay mar alle anay noqotay qof walba meesha ciirsan ka dhay carartay waa la kala orday biyo ma jirin gaadiid ma jirin wax la qaataa ma jirin oo cooshadii cagaf baa martay maxay ahayd anagoo gacmo maran baan meeshii ka cararnay waxaa dhacday dhulkii saas ahaa
oo dadkii birmageydada ahay oo fuqarada ahay oo masaakiinta ahay laga jebiyey waxaa dhacday maantay in ay u jeexan yihiin wasiiro iyo xildhibaano iyo madax iyo ganacsato war ilaa baan idinku dhaariyey islaamku in fuqarada wax la siiyo oo laga gargaaro miyuunu qabin war ma diintii baan ka noqonnay waan islaan lahayn war dawladda miyaa wax loo sheegi karin oo maluuqado kalean ku kala dhalanay oo la oran karin war dadkii nimeen dhulkay nugu jiideen cagafayna mariyeen waana biraayeen taagiyay nugu jiideen wax aan la arag oo la maqal bay nugu sameeyeen dhaawacii baan la naallaa gidaaradan la naallaa dhulkiina waxaa dhistay wasiiro xildhibaano guddoomiye baarlamaanka madaxweynaha ehelkiisii waxaan ku niri gabadha hadda meesha ee dekada loo bixiyey dekada qalalan gabadh dhisanaysaan u nilmaalin waxaan ku niri walaal macaanto dhulkan hanti qarab baa nala kaga qaaday dad sabrolooga iyo dad oobisi baan isugu jirnay balna fiiriyo dee sharciga noo fiiri waxay tiri anuu dikaraati madaxweynaha wataa haddii shalay uu insiiyey adeerkii cabdiqaasina maanta adeerkii xasan sheekh maxamuud baa isiiyey tiri waxaan ku niri waaya haddii saataa walaal waraaqa aadaysatana si natus baan ku niri waraaqihii markay natustoon aqrinay ayaan waxaan ku niri walaal haddii saas tahay ood adigu awooddaa maanta aad leedahay askarna intay nugu didhaa beerkana laga tumay talaal aan harsanayna xitaa cagaf bay amartay in lagu jaro qoraxdii oo aad u kululayd maars ahayd anigoo taagan waan ku niri walaal waxaan rabnaa inaad marka madaxweynaha noo geyso oo adigu awoodda addaadaada aan isaga soo cabano dee kitaab buu noo maro waxaan ka midnahay dadkiisii madaxweynaha noogee bal aan isaga soo cabaanay waxay ku tiri waxaa lama qoree haddaadan meesha ka tegin luguhiinu dhiig bay hoorinayaan wallaahi askar bay noo dalabtay gabar ilig xitaa bastoolada looga jabiyaa ku jirtay aniga daqar baa i gaaray waana la dilay sida xaal u dhacay oo tan ah haddiiba la yidhaahdo xeerkii madaxweynuhu shacabkii deganaa dhulkaasi kaga kiciyey ma ahayn mid ammaanka madaarka loogu danaynayo bal sharciga dalku muxuu ka qabaa in dhul danguud ah madaxweynihii dalku xeer madaxweyne kaga raro dadkii rayidka ahaa ee deganaa ku celiyo danguud dabadeed isaga iyo qoyskiisii iyo saaxiibadiisii xukuumaddu ay qala qaybsadaan bar kalena ganacsato ka iibiya mar haddii dhul qof la siiyo waxaa cajiib ah in baahi kale ay timaado ee qof kale looga qaado waxaa diidaayo saldhigga dhulbixinta qodobka afraad saldhigga dhulbixinta ee qodobka afraad faqraddiisa afraad wuu amaruu bixinaa wuxuu leeyahay waxaa ka reeban amar waay in dhul qof laga qaaday la siiyo qof kale marka haddii ay dhacday waxaa baaba'aayo jiritaankii sharciga number 10 oo sharci number 10 baaba'aayo waxaa kaloo baaba'aayo damaanadii qofkaani siinaysay dhulka shalay damaanadii lagu siiyey ayaa meesha ka baxayso marka qodobka afraad faqraddiisa afraad aa diidaayo dhul laga qaaday dadweyne oo dawladdu ay baahi caama u qaaday hadday dawladdu ka maaranto haddaan ciddii marka hore laga qaaday loo celinin cid gaara lama siin karo waxaa lagu qabanayaa dan caam ah arrin public ah ama isbitaal laga dhiso ama station laga dhiso ama garoon laga dhiso ama waxa lagu qabto shay public ah oo dadka ka dhaxeeya haddii uu qof isku dayo inuu taas waxa way macnaha corruption taas haddii qof isku dayo waa musuq maasuq haddii qof isku dayo inuu xoolaha dawladda qaato musuq maasuq ma ahan oo keliya xoogaa lacaga la xabaa musuq maasuq macnihiisu waxa weeye maamulka dawladnimada oo si abuse waxaadan xaq u lahayn loogu qaato ama lacag aadaan ama dhul ha aadaan ama dad ha aadaan waxay doonaan ha aadaan dadkii shacabka ahaa ee dhulka laga qaaday cawil ama beddel looma celin keliya waa laga kiciyey bal mar kale sharciga dalku muxuu ka qabaa haddii dhul danguud ah dadka laga raro oo dawladii u baahato kadib baahidii dawladdu meesha ka baxdo miyaa la iska kala qaybsanaya ma madaxweynaha ayaa qaadanaya mise ganacsatada ayaa laga iibinayaa mar kale aan sharciga dib ugula noqonno waxaan leenahay dhul kasta oo dad hore looga qaaday oo magac dawladeed yeeshay noola oosta kasta haddii la keeno
looma celin karo ciddii laga qaadicdanayo xuquuq baa la lumiyey qof lahaa marka hore laga qaaday dabadii cid kale la siiyey dacwad baa u furan dowladdii ka qaaday ayaa la dacweyn karaya waxaa lagu dacweynayaa warqaddii ay dadkan cusub ku siisay ay tiri waxaan siiyey dadka noocaasa ayaan u sharciyeeyey taa ayaa maxkamad sare dhigeen ciddaas marka waxaa looga soo celinayaa si sharciya as legal way marnaba ma dhici karto in qof dhul laga qaado ayadoo aan baahidiisii la dhammaystirin oon meeluu deegaan ku leeyahay la siinin in cid kale la siiyo waxaa waaye way dhacdaa laakiin wakhtigeeda iyo maalinteeda markii la gaaro waxaa imaan doonta in dib loo soo celiyo ayna noqoto maalinta cadaaladda in lagu fuliyo ciddii waxaa samaysay iyo ciddii ayadana milkiyad ahaan u qaadatay sharcigii dadku wada lahaa ee dalka u yiil haddii uu sidaasi qabo oo misana la baal maray bal dadku waa islaameh diintu maxay ka qabtaa waxaa garanaysa diinta islaamku shanta shay oo waardiyeyso ama loo yaqaano daruuriyaadka loo yaqaano ama loo yaqaano gundhiga diinta waa shan shay baa leeyahay diintu shan shay bay waardiyeynaysaa marka soo koobo diintay waardiyeynaysaa sidii qof ku toosnaan lahaa bay falankeeda gelaysaa qofka naftiisa la waardiyeynayaa inuu qofku maarata xaqiisa iyo noloshiisa la waardiyeynayaa qofka maalkiisa la waardiyeynayaa qofka caqligiisa iyo maskaxdiisa la waardiyeynayaa qofka sharaftiisa la waardiyeynayaa iyo qabkiisa walidaalika qofka wax kasta oo diinta dhaawacaya nafta dhaawacaya ama dhiig daadinaya maskaxda dhaawacaya maalka dhaawacaya qofka sharaftiisa dhaawacaya lama oga diinta waa xaaraantinaysa marka maalkaas in la waardiyeeyo ayaa waajibka dadka muslimiinta mas-uuliyiinta ka mid ah keligood ma aha hataa haddee kulligood ummadda oo dhan ba maalka caamka gaar ahaan oo hantida guud si gaara ayaa loo ilaaliyey maalka caamka ah waxaa loo tiiriyey inuu ilaahay iska leeyahay rasuulkiisa baa loo tiiriyey maslaxadda caamka waxaa maaragtay sharaf ugu filanba in ay qaadato teetalka ah ilaahay rasuulkiisa baa iskale waxaas in la yidhaaho si loo xurmeeyo looga boqo oo loo qadariyo marka maalka caamkaha ka mid ah nabiga sal alayh wasalam xadiis buu ku leeyahay uu bukhaari warinayo ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illahi bikayri xaq dad waxaa jira maalka ilaahay iska dhex dabaalanaya maalka ilaahay waxaa loo jeedaa maalka caamkaha loo jeedaa ayada wax kasta ilahay leeyahy subxaana wa tacaala laakiin wixii insaan leeyahay uu sheeganayo si gaara asagu maarata baa looga hadlaa marka hantida guud ilaahay baa loo tiiriyey xurmadeeda la muujinaya marka wuxuu leeyahay xadiidku leeyahay dad waxaa jira xoolaha ilaahay iska dhex dabaalanaya kuwaasi falahum الnaaru yowma alqiyaama kuwaasu naar bay leeyihin maalinta qiyaame waa dad xeradii ilaahay u dhacay weeye bal aan u soo noqonay dalkan waayihii soo maray oo sheeko iyo shaahidba laga wada dheregsan yahay markii uu ka baxay kumeelgaadhkii oo ka dhignay in la gaadhay xilligii laga bixi lahaa wixii daal la soo maray sida dadweynuhu aaminsan yihiin baadhistanna aad ku daawanaysaan waxaa dhacay waxaan ahayn wixii la filanayay taasoo dadku ku macneeyaan mas-uuliyad la daayacay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxay raacday dhabbadii dadku u soo joogeen ilaa sannadii 2000 ee ahayd in taladu ka go'do qof ama laba qof xilliyadii cabdiqaasim cabdilaahi yuusuf ama sheekh shariif iyo shariif xasan waxay noqotay tale ay jiheeyaheeda garwadeen ka yihiin 3 qof oo kala ahaa xasan sheekh faarax cabdiqaadir iyo cabdikariin xuseen qaabka noocaasina ma laha wax loogu yeedho political kitchen kusheeno siyaasadda lagu karkariyo kaasoo macnaheedu yahay
siyaasad tala wadaag ah iyo wax wada rogrogid uulul caqliga iyo ehlu cilmigu ay qayb ka yihiin hase yeeshee waxba yaanay jirin siyaasad dal dumay dib loogu dhisaaye waxaa dhacay oo si caama u baahay in boobka iyo xatooyada xoolaha dadweynuhu noqdaan gacantaha socoto afartii sannadood ee kumeel gaadhka bixii u horreeyey waa madaxileedkii madaxweynihii hore xasan shiikhe waxaa la xaraashay goobo danguud ah oo aan xaddi lahayn kuwaasi oo hantidii ka soo baxday si shakhsiya loo lunsaday meelo aan caqligu siisan karaynin waa la iibiyey waxaana laga dhisay bakhaaro iyo kaalmo shidaal lagu iibiyo kuwaasoo ay ka mid yihiin boqcaddii afarta dariiq isugu iman jireen ee caanka ahayd loona yaqaanay afarta darjiimo xilligii kacaankii halkan iyadoo laga duulayo inaan dadweynuhu ugu madhan shilalka gaadiidka waxaa laga dumiyey dhismayaal waxaa laga dhisay darjiinooyin qurxoon oo galabtii lagu shaaho sidoo kale waxaa loo sameeyey barxado 100 mitir dhinac kasta ilka aragtay baabuurta afarta jiho ka imanaysaa mid waliba kan kale ka arki karo afarta jardiino mainly dadku waxay u maleeyeen inay jardiino ahaayeen jardiino ma ahayne meesha hadba iska jaraan laba wado oo aragtida darawalladu ay dhib ku tahay waayo xagal toosan ayay waddooyinka isu jarayeen marka labadii gaari ilaa ay isku soo dhowaadaan isma arki karin kan midigta ka soo socda iyo kan labada sidaas isugu soo socdo mar dhanbaa qaladkaas la fahmay dowladdii waxay kicisay reerihii iskuweerkaas ku jiray si aragtidu ilaa 200 mitir ninka sidaas yidhaahdo oo u jeedo gaariga soo socdo oo midka tooska ku soo socday midka dadabka ka soo socday aysa isku dhicin markii meeshii la baneeyey kadib fikir waxaa soo baxay meeshii sidaan u fool xumaane yacni dan kalena ha looga faa'iidaysto markaasaa la dhireeyey meelo yar yaroo la fadhiistana oo loo yeelo xaafaddiina ay nafaas u naqato xaafaddii yareydoo dadka laga saarayna waxay dareentay meel nafaasoo ama carruurteeda ay ku soo ciyaaraan ama waayeelkuba ay fadhiistaan marka dambena dhir yeelato marka afarta jardiino sheekadu sidaasay ka timi waa 4 beerood 4 kwartar 4 rubac uu jidka qaanidiisa ku kala jira ayaa la baneeyey 4 jardiino niyahow inta ogaalkayga ah oo lagu kala tegey hantida afartaasi sannadood Soomaaliya laga dhacay kolka laga yimaado kuwa dhaqaalaha caddaanka lagu bedeshay waxaan loo aabayeelin dhulkii danta guud iyo goobii bannaana sanadkii 2014 oo dadka ugu suntan mid ka mid ah sanadihii Soomaaliya caasimadda looga taliyo ammaankeedu gaadhay heer kooxda al-shabaab weeraradoodu noqdaan kuwa aan lala gafin ama baseegin bartilmaameedyadii ay ugu talagaleen oo xataa sidii loo soo joogay ay dhacday inay helaan xogaha imaatinka qaar ka mid ah madaxda sirdoonka dawladaha la saaxiibka Soomaaliya isla markaasina ay dhacday inay hadcad magaalada ku beegsadaan waxaa xilligaasi wasaaradda ammaanka ku shaqada leh wasiirka ahaa Cabdikariin Xuseen Guule maalin sabti ah 24 May 2014 ayuu iscasilay Cabdikariin daraartaasi dadweynuhu waxa ay filayeen inuu iscasilaadiisaasi kaga jawaabayo fashilka kaga yimi mas'uuliyaddii wasaaraddii loo igmado hase ahaatee taasi beddelkeedii ayaa dhacday waxaana lagu war helay kadib markii ay soo baxday dulweyne boqolaal balood ka kooban oo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay Cabdikariin Xuseen Guule si uu u iibsado kadibna maamul goboleedkii Galmudug madaxweyne uga noqday dhulkii baaxadda lahaa ee caymiska egas kantarool iyo bogcaddii dugsigii farsamada gacanta ee Polytechnic ayaa qayb ka noqday dhaqaalihii Cabdikariin Xuseen Guule lagaga dhigay madaxweynihii maamul goboleedka Galmudug danyar iyo barakacayaal cooshada uga dhisnaayeen dibadda loo adeegsay awood ciidan lagana kici kadibna dhaqaalaha doorashadaasi lagu galay ayaa laga sameeyey dhulkan badh waxaa loo qaybiyey xildhibaanadii dooranayay madaxweynihii Galmudug qaar waxaa la siiyey oo haatan dabaqyo dhaadheer iyo dhul loogu sheegay inay yihiin
goobo waxbarasho oo gaar loo leeyahay ay uga dhisan yihiin shakhsiyaad caanka siyaasadda Soomaaliya oo qaarkood halkan waa Muqdisho maayarra ka soo noqdeen kuwa kalena soo hogaamiyeen aqalka baarlamaanka dalka Soomaaliya qaarkoodna hay'adaha nabad sugidda iyo socdaalka madax ka soo noqdeen dhulkii isku fadhigiisu intaasi leeg yahay dhaxal wareejintiisa xataa waxa raacay magacii hore loogu yaqaanay waxaana loogu magac daray maamul goboleedkii dhaqaalihii ka soo baxay madaxweynaha loogu sameeyay ee Galmudug iminka caasimadda dhexdeeda waa xaafad waxaana loogu yeedhaa xaafadda Galmudug shirkadihii Cabdikariin Xuseen Guuleed u dilaalay dhulkaasi ee dhanka iibgeynta u qaabilsanaa waxaa ka mid ahaa shirkadan oo sida fariimaheedii suuqeynta dhulkaasi ay ku baahisay warbaahinta iyo baraha bulshada kaaga muuqato taasoo ku gadaysay dhulka cabirkiisu ugu yar yahay 15 lagu dhiftay 20 lacag $550,000 dhulkuna wuxuu ahaa in ka badan 150 boos oo aan isku cabir ahayn waxaa Cabdikariin Xuseen Guuleed sidoo kale ku maqan muddadii wasiirka ahaa waxna laga weydiin doonaa isaga iyo nidaamkii uu ka tirsanaa xaruntii Fiisha Baara iyo haamihii geedka shidaalka ee Xamar Jajab oo isagu la wareegay haatan ku ganacsado kaalmihii shidaalka ee dawladda iskoosyada badankooda Muqdisho meel walba ku yiil kaalintii ugu weyneed ee lambar 4 ku tiil haatan halka loo yaqaano lagana dhistay hoteelka Afri dhammaan waa lagu kala huleel mid ganacsato laga kireeyay kuwaas oo lacagaha kirada sida xogahani ay nasiinayaan ama tilmaamayaan laga sii qadintay 20 sanadood muddo ku siban waa ilaa 2040 maalinta qiyaamada waxaa imaan qof kasta qiyaamaha wuxuu maaragtay uu xaday oo maalka caamka uu ka xaday asagoo siduu keenaya ayagu nool buu keenaya hadday geel yihiin hadday ari yihiin hadday lacag yihiin hadday dahab yihiin hadday baabuur yihiin hadday guryo yihiin wax kasta sidoodii ah waliba asagoo sida awood baa loo siinayaa inuu xambaaro asagoo sida ayuu la imaanayaa qiyaamaha si lagu fadeexeeyo oo maxaa lagu facsharo xeebtii Liido ayaa iyana badankeedu yihiin kuwa shakhsiyaad mas'uuliyiinka ah xukuumadii Xasan Sheikh ay qaateen wasiiru dawlihii hore Cabdilaahi Maxamed Nuur ayaa ah shakhsiga ugu badan ee haatan dhul xeebeedkii Dimaayo Mirito Waalid ee gacanta ugu jiro maqaayadda cuntada iyo caweyska ee loo yaqaan Beach View oo baaxad dhuleedkeedu intaasi leegyahay ama ku fadhiyo oo sidaad barnaamijkeena hore ku daawanayseen kamid ah ganacsiyada uu mulkiilaha ka yahay ex wasiiru dawlihii maaliyadda haatan ah xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliya hantida dhuleed ee kale ee uu liida ku leeyahay xildhibaan Cabdilaahi Maxamed Nuur waxa kamid ah booska weyn ee halka kaaga muuqday dhanka waqooyi kaga dhagan maqaayadda loogu magacaabo Seafood ee haddana dhismuhu ka socdo booska bannaan ee dhinaca waqooyi isna ka xiga ama kaga dhagan dhulka hoteelka cusub ee lagu magacaabo Connecticut Hotel kaasoo iminka macaamiisha hoteelkaasi baabuurta dhigtaan waxaa kaloo kamid ah booska bannaan ee dhinaca badda ka xiga sarta dheer ee isna halkaa ka dhisanayo siyaasigii cali sartan aad arkaysa ee u dhaxaysa hotel Coconut iyo Beach View waxaa isagana leh Cabdiraxmaan Kambala waa madaxii hore bartikoolka xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud haatan wuxuu ka tirsan yahay nabad iyo nolol oo waa safiir ku xigeenka dalka Kuwait hoteelkan wuxuu ku kacay qiyaastii $700,000 haatan wuu shaqaynayaa uu furan yahay maalka caamka waa khatar waxa dhacday maalin ayadoo ma duulaan lagu jihaad lagu jiro markuu jihaadka dhamaaday xooga qanimo la aruurinayay ayaa nin xooga ayuu meel dhigtay marka ninkii xooga qaatay dagaal ku dhintay marka ninkii markuu dagaalkii ku dhintay ayaa waxa la maasha Allah hebel waa shahiiday janno heeyaa la yiri wuxuu yiri ka janno ma helin xooga uu qaatay baa lagu cadaabayaa buu yiri xoola yara oo kamid qanimadii iyo meel gaar u geysay si gaar u la haray oo khiyaanay ayaa dab kula shilmayaa buu yiri sallallahu alayhi wasallam waa nin ku dhintay jihaad ku dhintay weey baa loo deynaynin soo garmaysid
runtii yani fadeexadaas caamka baa ka jirta oo khatarta ah xoolaha caamka haddii lagu xadgudbo waxyaalaha waaweynka oo dunuubta bay ka mid tahay oo maalinta qiyaamaha facsharaad gaar iyo fadeexadeen gaar ah ayaa lala sugaya qofka noocaas oo kale ah qofka maalka caamka ah hada qofka ballanka ilaahay iyo magaca ilaahay sida khadan u isticmaalo runtii waana mas-uuliyiinta marka mas-uuliyiinta oo ummadda magaca ilaahay kugu dhaaranaya oo ummadda magaca ilaahay usoo dhex marahaya oo la odhan karo magaca ilaahay bay maaragtay ayay marsanayaan baryaha madax waa la marsaa la sheega moogta ayay xoganayaan marka ninka mas-uulka oo ummadda magaca ilaahay ku khiyaanahaya wuxuu la mid yahay qof magaca ilaahay subxana watacaala xoganayuu la mid yahay oo marsanaya oo ku gudbahaya marka ummadda masaakiinta ahayd oo ilahay magaciisa lagu khiyaanay ilaahay qiyaamaha ugu aargudahaya heerkan kolkay maraysay dad yowga yiqiinsan in musuqmaasuqu yahay cadowga mujtamac kasta oo dunidan ku guud nool waxay wakhtigaasi ku tilmaamaan inuu ahaa xilligii faafinta xawaarihii xoogga badnaa ee musuqmaasuqa soomaaliya ku dhaqaaqay la odhan karayay dalka soomaaliya iska badaayo waxaa la dagaalamayaasha musuqmaasuqa ee dunidu uga cabsi qabeen in kooxahaasi maabka dunida ku ranjiyeeyaan aafada musuq madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre maxay tallaabo ka qaadi doonaan xalaane ma jaleeci doonaan ma xumo maalgashiya ajnabiga iyo muwaadinka maalka haysta midkee dowladdu mudnaanta siin doonta nabad iyo nolol lafteedu baadhitaanada baadigoob siday u waajihi doonaan ma la arki doonaa mas-uuliyiinta jirridaha u noqday musuqa oo maxkamadaha la saaray sinaanta sharci baa shacab ka mideeyee sidee laga yeeli doonaa baadigo kaa baaqan maaye yaanuu baylah kaa helin